waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweeneyda hogaamisa Jarmalka de annaga dad badan oo culimada kamid ah gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wa diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meel ay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan laakiin waa u jeednaa Jarmalka ما مركي سدحاد حكومة يسام سو مركي أفراد. سائل كم حليه شيخ سائل كم حليه وحاج شيرة مالمها سوشيال ميديا هاي إنه كتشلو سياسي صوماليات وبيننا يحديث كوران هي ناقصات عقل ودين. شيخ حديث كاس حديثا كوران يوحى لقوة ناقصات عقل ودين. واركي وياهن سوشيال ميديا نكن هذا الكسوق قليل السياسي جيد هذا عبد الرحمن عبد الشكور علماء بدنا ويرديان وعلماء المسلمين تكمده ردي قدنا واتكه ليسان هو هاي ميديا هذا حديثه لكن سيجابن هذا نوجد جوابه حديث كهرت بخاري ومسلم باوريي عدي سجى كهر رئيسي وحديث كاس الدرتي أما ضعيف سين ما شرته السجر والسياسيو حديث ما يقانه حديثكم السجية مثل ما السجنا إنه حكوك يا أم الله إن ما يقابل علمي وحديث كأما ضعيفين كرو أما صحيحين كرو maxay ilay xadiis bukhari iyo muslim ku yaalo culimadu ugu horeysay wax daciifiye aysan jirin kumuusan dhiiradeen haduu cilmi xadiis wax ka garanayo waa mid labaade xadiiska macnihiisana muusan fahmin waxay ilay xadiiska nabigu markuu fasiray sallallahu alayhi wasallam aayad quraan ku fasiray oo salka u saaray oo aayada quraanka fi suurati al-baqara ku jirta aayatul mudayana ku jirta buu nabigu ku tafsiiriyay sallallahu alayhi wasallam oo masaladu ay tahay dumarka waxa laba la isu daba dhigay inay mid haday halmaanto ta kala xusuusiso xuquuqdii baa la ilaalinayaa xuquuqdii yaa la ilaalinayaa mid labaad way xadiidka muusan fahmin oo wuxuusan u fahmin ama intuu fahmay buu kas iska yeelyeel ayuu uga tilaabsaday xadiidku wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo ishhaad ee kama hadlayo shahaada kama hadlayo waxaan u jeedaa aayaddu waxay ka hadlaysaa nabigu xadiidka u celiyay ishhaad buu ka hadlaysaa shahaada kama hadlo waxa kala duwan markhaati furka maxkamadda horteeda ah iyo xuquuq ay dadku ruuxu doonayo inuu yaani wax way tawfiiqiyo xuquuqda iyada ah inuu markhaati u sameeyo oo xuquuqdii inayna lumin markhaatiga loo sameeyo iyo waxa kala duwan maxkamadda horteeda markhaatiga la furayo uu kala duwan yahay حديثك يا آيات وحي كهالليان ومسألة الإشهاد الشهادة محكمة معه وقضب كلاه إسل حديثك لفتي النبي صلى الله عليه وسلم وحكو عدي ضمر كمركو ناقصات عقل ودين وحي هذين نقصك عقلك أنك كتشر محويه وحو النبي صلى الله عليه وسلم سو آيات دي قرآن كهيد سو إلهي الله وإسكم الله ما ننسي حسوسيان مركي تكالها المانتو وهالمان بالغا الله نقصان الدين تنظم حي تاي بويديان وحي النبي صلى الله عليه وسلم سو رغو مركي عباديسانيان ايغو صلاه iyo soonka kama tagaan waa markay caadadu ku dhacdo taana waa nuqsaan diinta ma aha waajib ay ka tageen oo dambi ku leeyihiin ma aha laakiin macna wax weeye ragii muddada way cibaadaysanayaan ayagana cibaadadii way ka fadhiyaan salaadii iyo soonkii cibaadaadkii caadadu diidaysa waa mid saddexaad wax la yaab kale waxay tahay ninkaasi xadiidka inuu duro oo meel kaga dhaco oo inkiro wuxuu u sameeynayaa oo hadalkiisa ku cad in uu dumar helo siyaasadda ku taageera bimaana wax weeye xadiidkaasi ma jiree siyaasadda waad geli kartaane haddaan kursiga qabtana dawladda waan idinka qayb geline taageera waay ما سياسة iyo adduunyo iyo kursi la raadinayo ayaa diinta loo inkiraa
وحديث النبي قال له إنكرا يا لكن واحد الكلية بين صومالي ذا رجي دلكودا بربريي oo dhiigooda daadiyay oo karaamadooda ku ciyaaray oo sharafkooda ku ciyaaray oo qixiyay oo dib oo dhan u geystay ayay abaalgud uga dhigeen inay kursi saaraan oo madax ka dhigtaan haddana tii intay ka soo tagtay ayaa waxaa yimid diinta durideeda in kuraas laynagaga raadsado shalay dal la burburiyay iyo dhiig la daadiyay iyo ummad la baabiyay baa kuraas lagu helo rag baa kuraas ku fuulay maantana way ka soo gudubtay oo diintii oo la caayo oo lagu xadgudbo ayaa kuraas laynagaga raadinaya aqligeennii iyo diinteennii iyo dadnimadeennii ayaa marka la tijaabinaya oo nin walba maalin kursi ku raadinaya marka uu xadiiska nabiga duraya sallallahu alayhi wasallam oo uu inkirayo dhanka kale wuxuu amaanayaa Angela Merkel buu amaanayaa Angela Merkel habar gaalnimo ku weynaatay oo 70 jir ah oo inta gaalnimo kula ekaatay ayuu amaanayaa dhanka kale meeshuu xadiidka nabiga durayo sallallahu alayhi wa alihi wasallam culimadii muslimiinta ayuu ku been abuuranayaa oo uu leeyahay axaadiisii meelahan ka soo ururay wadaadadu sheegaan oo jeebkooda ka keeneen culimadiina waa ku been abuuranayaa gaal 70 jirna waa amaanaya waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka ah qaabka in la idin la hadlo oo ninka iyo wax la mid ay qaabka idin la hadlaan aqligiina iyo garaadkiina ay fududaysi ku tahay asagu wuxuu isleeyahay dumarka wax kaga raadi laakiin aqligiina iyo maskaxdiina iyo dadnimadiina ku ciyaaraya asagiyo wax la mid ah markuu ku og yahay ruuxa inaad fahmi karto waxyaalaha qaarkood kugula soo degdegi maayo laakiin dumarkiiba wuxuu geeyay heer lagu ciyaari karo maskaxdooda lagu ciyaari karo been loo sheegi karo diintooda lagu falaadi karo kadibna la dhihi karo idoorta kuraas baan idinka dharjinayaa war waxba kuraas naga dharjinay diinta nabadgeli sooma baan in la yiraahdo war kuraastaada ma rabna iyo adduunyadaada toone adaro diinta noo nabadgeli in la yiraahdo u baahan yahay laakiin waxaan rajaynayaa gabdhaha muslimaadka ee Soomaaliyeed ee maanta jooga inta way ka wacyi roon yihiin way ka aqli roon yihiin way ka diin roon yihiin in diintooda la duro oo xadiiska nabigooda la inkiro oo culimadooda wax laga sheego oo la yiraahdo itaageera kursi baan ku helayaa ma sidaasan doqomo una ma ilaahay heerkaasaan doqomanahay maya abadan sidaas daraadeed isagiyo inta la midkaba abaalkoodu waxa weeyaan waxa ay axaadiista u ingareen oo gaalada u ammaananayaan oo kuraasta ay ku raadinayaan kow horta kuraasta inay waayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto kaasoo kale wax loo dhiibtana ma aha wax kursi la siiyana ma aha wax ummad muslima hogaamin karana ma aha wax mas'uulana ma aha ummadaha uu ka hadlayay gaalada dhaqamadooda ilaaliyaan culture-kooda ilaaliyaan kaniisadooda ilaaliyaan baybalkooda ilaaliyaan waa ummadan uu amaanayo waa laakiin wax weeyaan adigu culture-na ma lihid diinna ma lihid dhaqan ma lihid ummad baa doonaysa marka inaad qaabkaasi wax kaga hesho sidaas daraadeed waxa noocaas oo kale ah quraanka kariimka baan la yaabay sida uu uga warramay ninkaas waxa la yiri wadaad buu ahaan jiray dadkii wax akhristay buu kamid ahaa waxaan la yaabay quraanka kariimka markuu ka warramayo ruuxa diinta wax ka fahmay ee haddana insilaakhay isagoo diinta garanaya ka dhaxbaxay wuu ka daran yahay ruuxa jaahilkeen diinta garanaya Allah wuxuu ku tilmaamay famathaluhu kamathali alkalb ya watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أي أوكلوا إلهي تصالة وقرنية روح انتو الدين تبري أو قرنية هذا الدين تكدح سيبتي والدنيا كدورتي وكرسي أقح الشيء وحول أقح الشيء وسيدا أقدح بحي دينتي
ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu ey oo kale yahay eyga tilmaantiisu maxay tahay haddaad eridana wuu hiraanhiraya carabku laalaadinaya haddaad iska dayso uu nasan yahayna carabku laalaadinaya waa hiraanhiraya laba gooraba waa hiraanhiraya carabku caliyadu daadinaya ilaahay miisaal xun buu ka bixiyey sidaas daraaddeed waxa noocaasoo kale ah wacyiga ummadda muslimka ah gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed wacyigoodu waa ka sarreeya maanta in lagu siro in culimada la caayo axaadiista nabiga la inkiro kursina lagaga raadsado intaasi wacyigiinu waa ka sarreeya waana runtii wax bay xaqiraad iyo yasid aqligiina iyo maskaxdiina lagu sameeyo waay maalintan muqdisho tagay waxaan la kulmay gabdha iyo dumar badan oo waliba dumarka siyaasadda ku jira ama siyaasadda u ololeeya inay galaan oo Soomaali ah oo hooyooyin maamooyin u badan ayaan la kulanay aniga culimo kale waxa la yaabay wuxuu ahaa gabdhahaasi waxay raadinayaan waxay leeyihiin xuquuqdii dumarka ee siyaasadda Soomaaliya aan rabnaa in la siiyo kootadanadii ama qoondadanadii siyaasadda hana la siiyo culimaday la fadhiisteen waxyaalaha ay isku raaceen waxa ka mid oo ay leeyihiin annaga wax shariicada iyo diinta ka hor imaanayo marna ma rabno waxay diintu noo okoshahay baan rabnaa waaba gabdhihii siyaasadda ku jiray kuwii kale iska badaa diintooda iyo dhaqankooda iyo culture-kooda iyo inay ilaashadaan yaa asal ah laakiin waxa weeye in diin xoor iyo diin tuur iyo xadiis inkir iyo diinto lagu tunto kuraas lagaga raadsado gabdhaha muslimaadka aqligaasi waa horu ahaa waxaan dhihi lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan dhihi lahaa toobad baa ku furan toobadkeen ilaahay u soo noqo toobadaadana iclaami kana noqo khaladkaad gashay ilaahayna uga toobadkeen toobadu waa furan tahay inta aad nooshahay laakiin sidaas ummadna ku hogaamin maysid kursina ku heli maysid madaxweynena laga dhigan maayo ummadana diinteeda hadaad ku ciyaarto aakhira la'aan iyo adduun la'aan baa kugu dhici ilaahay u soo noqo wallahu a'lam